ma la kulantaa ama ma kugu dhacdaa inay inta badan ay soo gaaraan fariimo kusoo dhacaya emailkaaga isla mar ahaantaana aadan adigu u baahnayn in fariimaha lagu soo diro tusaale haddii ahaan lahayd kuwa xayeysiima ama haddii ahaan lahayd kuwa shirkada isxayeysiinayaan iyo waxyaabo lamid ah isla mar ahaantaana kaa buuxiyay chat-kii emailka ama emailadaadii maxay ahayd tole kaa buuxiyay oo mararka qaybtood kugu dhici karta inay ku dhaafiyaan emailladii muhiimka ahaa ee ku soo dhacayay haddaba maanta waxaan ku bari doonaa ama ku tusi doonaa waddo fudud oo aad iskaga joojin kartid inay emailadaas aadan u baahnayn inay kuu soo dhacaan oo maanta laga bilaabo markaad iska xirto ayna mar dambe kuu soo dhici karin sidoo kale isla videogan waxaan kaaga faa'iideyn doonaa oo ku tusi doonaa sida aad ku ogaan kartid inta meelood oo aad emailkaaga ku xiriirisay markaan leenahay tusaale kale meelo kala duwan ba account ku leedahay waxa ku leedahay TikTok مثلا waxa ku leedahay Facebook مثلا waxa ku leedahay website kale aad iska diiwaangelisay مثلا ama Udemy ama meelaha wax laga bartaa iska diiwaangelisay dhammaan wax ku gashaa emailkaaga Soma ama yani Google ama Gmailkaaga ku gashaa Soma inta meelood ee aad ku gashay emailkaaga iska diiwaangelisay ee aadan war u hayn baan isna ku tusi doonaa si aad uga faa'iideysato iyo waliba sidoo kale haddii aad ka maarantay meelihii aad ku gashay sidaad iskaga masiixi karto oo dib uga laaban karto haddaba intayna u guda galin waxaan kaa codsanayaa inaad nagu soo biirto muuqaalkana like iyo share aad taabato si ay walaalo fara badan uga faa'iideystaan muuqaalkan haddaba aan isla fiirino shaashada kombiyuutarka si ay idiin tuso steps-ka kooban ay mari doono sidoo kale waxa maskaxdiina ku haysaan haddii aad mobilka isticmaalaysid iyo haddii aad kombiyuutarka isticmaalaysid waa isku mid hal wado oo kaliya la maraya yani wadada aan kombiyuutarka ka maro sidoo kale mobilka isla intaas la maraya waxay ku kala duwan yihiin male waayahay haddii dhinaca kombiyuutarka nu soo jeesano marka koowaad saa aragtaan waxaan soo furtay Gmailkayga ama Gmail account-kayga baa ii furan waxaan ku horumaraynaa tan koowaad oo ah emailada aadan u baahnayn sida aad iskaga clear gareyn lahayd ama iskaga joojin lahayd waayo aniga halkan email fara badan baa yani igu yaala taalo kale provider VPN kan oo kale waxa la yiraahdaa Meta ama shirkadda Meta Netflix kan Notion kan Snapchat kan waxa dhan baa yaala marka waxa laga yaabaa qaybtood inaana u baahnayn inay soo gaaraan mesela marka sidee baan iskaga dayn karaa yani tusaale kale inay soo gaaraan sidee baan u joojin karaa waayo kuwan kaliya ma aha dhammaan emailada hadda tusaale kale kuwa fara badan baa hoos jira marka waxaan ku tusi doonaa step 1 waxay noo noqon doontaa meesha ay ku qoran tahay search mail ayaan wax ku qori doonaa unsubscribe okay unsubscribe waayo unsubscribe markaan ku qoro then enter baan dhahayaa wuxuu ii soo saari doonaa dhammaan emailada yani waa waxyaabo fara badan ama result fara badan baa soo baxay dhammaan emailada u baahan inaan unsubscribe aan iska iraahdo si ayna mar dambe ii soo gaarin hadda tusaale kale waxa ugu soo horeeya ka Facebook ku qoran tahay Facebook oo baahanahay unsubscribe iska dhimaayo kan oo kale Glovo uma baahni then asagan ku dhufanaya waxaan taabanayaa meesha ay ku qoran tahay unsubscribe it means haddii aan taabto ka bacdi unsubscribe baan sii dhahayaa maxaa halka aragnaa inuu leeyahay you unsubscribed from tiktok@info.glovoapp.com yani maxay ka dhigan tahay inaan hadda unsubscribe iska yaray emailkaas mar dambana ayna ii soo diri karin email xayeysiina iyo waxyaabaha la mid ah sidoo kale haddii aan dib u soo laabto aan back iraahdo keligii ma ahana tusaale kale kanay ku qoran tahay Tovel team kana haddaan isdhaahdo unsubscribe waa ka u jeeda ma filaya isna unsubscribe dhahaya marka dhammaan emailada aadan u baahan tahay inaad unsubscribe iska dhahdo waa dhihi kartaa waayo waxa u gudagalaynaa topic-geeni labaad ee ahaa inaad ogaatid meelaha kala duwan ee Gmail-kaagu oo aad ku gashay saan hore u sheegnaba Gmail-ka wax lagu galaa meelo fara badan ba iskaga diiwaan galin kartaa Soma meelaha aad Gmail-ka iskaga diiwaan galisay si aad u ogaatid waxa numberka koowaad tagaysaa sawirka icon-ka yani sawirka halka ka muuqda ku dhufanaysa marka koowaad sawirka marka ku dhufatid ka bacdi waxa halkan ku dhufanaysa meesha ku qoran tahay manage your Google account telefonka hadda isticmaalaysidna waa isku wado waaye manage your Google account haddii aan ku dhuftay ka bacdi waxaan tagi doonaa meesha ay ku qoran tahay data and privacy sidoo kale mobilkaagana wuxuu ku yani tabs buu ku sameeyaa dhinacna u soconaysa waxa arki doontaa meel ay ku qoran tahay
data and privacy. Data and privacy kan markaan ku dhufto halkan uu iga soo saarayaa xogtan hoos baan u soo baxayaa wax yar hoos baa u soconaysaa waxaa raadinaysaa meesha ay ku qoran tahay third party apps and services yani inaynu ogaano ama aynu helno yani website-yada iyo applicationska third party-ga inagu ah yani gacanta saddexaada ee aan ahayn kuwa Google-ka asliga ah waaya markaan ku dhufto aniga kuwa ah waxa halkan arkaynaa inay total ahaan yihiin 44 application oo aan Gmail-kayga anigu login aan ku iri laakiin aniga 44 application يعني waxaan u wada baahanahay waana waxaan ogsoonahay waana waxa mar walba aan kormeero aan u warhayo marka qof walba marka hoos baa u socon karta waa ogaan kartaa yani dhamaantood uu ku soo wada muujinaya adigana hadaa kaaga sida u eegtid isla sidaas oo ku soo muujinaya way hadii aad mesela u baahan tahay inaad mid kamid ah log out iskaga dirto oo aanan yani Gmail-kaas aan mar dambe access u yeelan hadda saalo kale ka DeepSeek ay ku qoran tahay ma rabaan inaan ka saaro Gmail-kayga waa ku dhuftay click baan siiyay ka bacdi meesha ay ku qoran tahay delete all connection ka ku dhufanaya ka bacdi waxaan dhahayaa confirm inta hadaan dhaho it means uu ka baxay khadku ka baxay oo DeepSeek mar dambe Gmail-kan kuma gali doono ilaa anigu cusboonaysiiyo oo markale aan dib u galo hadaba labadan barnaamij aan kuu sheegay wuxuu ka saacidayaa number 1 emailada faraha badan ee ku soo dhacaya xaysiimaha ee Gmail-ka ka buuxsameeyay ka joojiso number 2 wuxuu ku saamaxayaa inaad la socoto Gmail-kaaga meelaha kala duwan ee aad ku gashay waxa laga yaabaa website fraud ama website scam حتى أنا تكون قشة login على ده سأل واحد صدقنا أول سؤال شتو ماشي كلي أتك كنترولي كرتيد وأنا هالكن أتكلم سعاته هذا مقال كنا مانته أنت سويك أجي هاي